ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Firish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay sihayaha xilka wasiirka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Saciid Xamse. duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Firish ayaa uga mahadceliyay howlwadeenada iyo madaxda wasaaradda gargaarka sida ay had jeer uga go'an tahay xal u helidda arrimaha barakacyaasha iyo sidii dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Muqdisho ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan. kulankaasi ay wada qaateen duqa magaalada Muqdisho iyo wasiirka gargaarka kadib ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya kala wareegay agabyo kala duwan kaas oo ka mahadceliyay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Iimaan. waa kaaga mahadcelinayna adiga iyo wasaaradda dhamaan aad iyo aad u mahadsantiin. mar walba waxaan ka mahadcelinaynaa wada shaqaynta iyo inaad saaxiib u noo dhowtiin iyo xiriir dhow leenahay. annaguna sidii aan ka wada hadalnay waxaan hirgelin doonaa xaruntii sida ugu dhaqsiyaha badan spacekii iyo wixii ku shaqayleedo dhan waa dhamaystiri doonaa. waxaan idinka sugaynaa in inta dhimanna aad nala soo wadaagi doontiin haddii alla idmo ay ku jiraan tababaradii dadka ka shaqaynaya meeshaan iyo wixii kaloo aad nala fududay kartiin. intaana waa idinka guddoonnay aad iyo aad u mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaynaa. sihayaha xilka wasiirka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Saciid Xamse ayaa tilmaamay in wasaaradda gargaarka ay dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir gaarsiiyeen agabyo kala duwan oo kor loogu qaadaya xal u helidda arrimaha barakacyaasha iyo sidoo kale sidii dadka danta yar ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan. qalabkan waa phase 1 waxa ka ku xigi doono haddii Ilaahay yiraahdo tababar waan u fidin doono shaqaalihiina kadibna wixii kala technology marka horaan waxaan u geynay 5 maamul goboleed Puntland aan gaarsiinay Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle. marka inaga dambeysay ma inaan dambeysay waa inaga waxa tii dadka marti geliyay oo magaalada marka insha Allah waan dadaali doonaa waxaan la qaban karno waxyaabaan horta shaqo kula soo yaalo waaye. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.